بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يلا واحد نجلس عطان وتي في جرجاتي وأدمر والبنوجة براتين أرمها سياسة دا أرمها الدين تي وحول أنا معركة كان إذا جسوا جد منه ما أنتنا وحنوجا علينا أرمها بيلها جرجاتي وحنا كان نجلس سجن سنة دين بيش جرجاتي waxaa sidoo kale nagu soo biiray barnaamijka waa Dr. Saciid afayeenka beesha gurgaate waxaa maanta igala qayb qaadanaya Ilaahay awoodda bilaabo ugaas Maxamed Bashiir iyo garaad Agay Sultan Sayd Cali Sayd Cabdullaahi iyo gudoomiyaha midnimada Axmed Cali waxaan ugu soo biiray afayeenka midnimada gurgaate marka shaqada kula socota xoogaa shaqada nalka yaraya haddii ilaahay isu dhammaantiin marka hore soo dhawaada waxa barnaamijkan aan wadnay muddo bishii September marka maxaa horta noo qabsoomay waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo ugaas Maxamed Bashiir ugaas soo dhawow كنتوا معانا نوقف تومي أوجات سجال هوشان ودني مالين عيون وحدة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا وحنا نعلم الله عود له إنه شامل عنه كل الجبهة العالم تيجي سبي برجاته الله الحمد لله وأن لا يوجد رمضان نبي ودنيه عافمات يمكن مثلا الله العريض عافماتنا الله عافاك لو شهد منه عالوا بين قولان بشهر رمضان يجي عافام الرية برواغناس أما المسلمين تقرها ولا أقرقاتا ويميل الجوغان وعانا كلام نعدو حين الله أن يعافي يمكن تكون يقوطيون وكذا الإسلام كنت أوجات أنا كلام ولا محمد قرقاتي وكم الناس القضاء ولا أوقاها يقول يمين قطع الله ولا قال كل فرق بدل من الله بجري وبدري من حد القطع طبعا فرتيجا ليسون وش محمد قرقاتي وحرمنا يكون وين واسلوكم يكون وين هذه عادة ما أتصنتي محمد بشير حتى لو حرب إلى جراد عجي جراد واحد يتبقي أرنتا وحكب اللاوي runtii dhinaca suugaanta ha noqoto ama sidii xag dhinaca dhaqanka ha noqoto ama dhinaca aqoonyahanka ha noqoto aan waxba ka tegin suugaan badan la ku geliyeen juhdi badan la geliyeen maantana mataqaanaa ah gudoomiyaha guddiga gudaha ee qabanqaadada shirka bal wixii noo qabtay adiguna soo dhow أما أنت مغلق دونتا أما أنت بتكين نقاري دونو وأنكو سلامة السلام عليكم ورحمة قعد السلام ويسمع تابطي وعنو ما أدعينا يا أنتي هورها كقريب غادتي جلسي أما حوق جلسي أما حول جلسنا وعن الله جزاك الله هدية
intaa kadib arrintaanu meel badan ay soo martay madaxweyne bashiira kaga shaqariyey haddee sida aad uga shaqaliseenba annagu gudaha ayaan si xooga uga shaqaynay dadka gudaha uu sheegay soo mareen haatan anagu wax joogaa turkiga oon ku doordoonnay oo maaragtay canugumaan ku kala celiyey maalintii ugu dambaysan camalka soo baxay jumcada soo baxay khamiistii haddee guushii ugu dambaysay ku xirlaaminay in maaragtay la isugu imaan doono oon muddada ku qabannay kumanaan talagelin haddee qaybka ilaahay gaar waaye kala xirkaan kumanaan talageline oo duubabkii muqdisho ama koonfurta soomaaliya intoodii badneed soomaaliya gudaha ay isugu yimideen oo horkacayay imaan maxamed cali imaam iyo shirwac ayaan ku go'aaminay in la isugu yimaado arrintaas haddii alla qadaraayo qabanqabadii guddiga aan madaxda u ahay oo gurgataawiye oo isku keenidda amba maaragtay abaabulka ayaa arrintaas ku guulaystay raggii kala duwanaay oo gudaha ka shaqeeyey waxay ku guulaysteen inay todobadii guglood dhigaan waxay ku guulaysteen inay walaalahood u galliimaan waxay ku guulaysteen walaalkii kale inuu aqbalo waxay ku guulaysteen in ummadii loo bandhigo dhibaatada dadka haysay waxay ku guulaysteen inay la isla fahmo inaysan waxbana dhex aalline caqli darro ay yihiin wax meesha yaallo haddee guushii aan ballan qaadnay oo dibadda gudaha in laysaga yimaadaan ballan qaadnana waxaa dib u dhigay amuurahan xagga laga yimid ilaahay ummaddan ka soo qaado marka aad iyo aad ayaa farxad iyo noogu tahay in laysla garto ama heeryadii dadkan lagu kala maaragtay uqolqaayayo ay meesha ka baxdo in badan oo kamid ah ay isla garato in dadka intiisa badan oo isla garto inay xaq tahay in loo garto in walaal isku hooye ama midna gabayl laga dhigo midna gabar laga dhigo inay isan xaq ahayn diin ahaan iyo dan ahaan iyo cudud ahaan iyo caqli ahaan iyo adduunya aakhira meelay karaan kuleeda inaysan jirin waa la isla gartay haddee caqliga hadduu soo noqday xun baa loo baahan yahay horowkicina waa hidiladiisii iyadoo maaragtay taxayiyeen xooga u socota ayaa soo dhexgeliyey caabuqan iyo musiibadan adduunyada ku habsatay soo dhex gashay iyadana waxaan leenahay allah naga qaado way sii jeedahay allah sii sikiyo haddee aad iyo aad ayaana u celinaa xiriirka iyo ragga maaragtay dadaalka ku waday ama tv-ga gurgaati gaar ahaan maadaama aan guddoomiyihii gurgaati ee maaragtay soomaaliya aan ahay aad iyo aad ayaan uga mahad celinaa waana soo dhaweynaa waana bogaadinaa waa intaasoo wala sii dhawaatiinaan leeyahay aqooyahanka isku howlay waa intaasoo wala sii dhawaatiinaan leenahay ganacsatada isku howshay waa intaasoo wala sii dhawaatiinaan leenahay wax kala isku howlay aad iyo aad ayaan idiin soo dhaweynayaa aad iyo aad aad u mahadsan tahay garaad cagay haddana waxaan rabaa inaan siiyo suldaan sayid cabdullaahi suldaan markii aan bilownay arrintan ilaa kirkiyaan london aan ugu nimid ilaa maantoo ciidahoo la joogo oo la wada ciidayo bal wixii noo qabsoomay iyo wanaaggaas iyo sida aad u aragtay siday saamayn ugu yeelatay ku dhawow adigu بسم الله الرحمن الرحيم inkastoo xogaa codka aan aad loo maqlayn ma aqaan xaggayga ma dhinaciina haddana waxaan dayayaa maaragtay inaan marka ugu horeysa waxaan leeyahay ummadda muslimiinta bisha barakaysan waajibka soonkaa soo gudatay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr gaar ahaan bahweynta gurgaate ayaan ugu hambalyaynayaa ciidan maaragtay munaasabadda ciid alfitri almubaarak talabaad waxaan u malaynayaa maaragtay maanta uma baahna in laga sheekeeyo ama la is yidhaahdo maxaa qabsoomay iyo xagee la marayaa maanta waxaan arkayaa meel la marayo waa meel aadaysa
muxuu ahaa arrin weyn ayaa maaragtay iyo muxuu ahaa yani tallaabooyin aad u qiimo badan ayaa la soo qaaday oo hadda meel aad u wanaagsan maraya marka maanta waxaan u malaynayaa taxliiq uma ay baahna maaragtay in la yidhaahdo maxaa noo qabsoomay waxaa qabsoomay waa wax aad u tiro badan waa isbarasho waa barnaamijyo badan oo laga soo fuliyey dunida daafaheeda kala duwan oo meel walba shir lagu qabtay oo muxuu ahaa dadkii isbartay oo maanta meel fiican la marayo oo qolal fara badan la furay oo 24 saac ee ka socota munaaqasho iyo iswaraysi iyo xagee la maraya iyo xagee loo jeedaa iyo maxaa maaragtay naga maqan maxaa ilaa hadda soo qabanay marka waxaan u malaynayaa meesha la marayo waa meel aad maaragtay maanta yani u sarreysa oo qiimo weyn ayaan u arkaa marka waxaan rajaynayaa insha allah inaan kasii wadno halkaas oo aan kasii dhaqaaqno arrintii maadaama maanta ay annaga dhexdayada ay marayso oo bahweynta gorgaatay aad ula socdaan iyo maaragtay iyo inta kale oo soomaalida kale intaba waxaan filayaa waqti dhow inay u gudbi doonto heer maaragta national ah oo maaragta waddanka ah inay u wada gudbi doonto de waxyaabaha naga dhimana maanta iyo maxaa noo qabsoomi waayey kolley waxyaabaha qaar waxaan u malaynayaa horta carqaladda ugu weyne maantana hortaagan waxa ay tahay maaragta cudurkan oo maku maqlaya axmed maku maqlaya dhibka jira maku maqlaya si aniga laakiin maykayga caadi waaye saan u malaynaa aariya meel nooga furan qofay aariyadaas la socotaa garan maayo marka wax yar isu insha allah sultan waa kugu soo noqon doonaa ويا هذا الصعيد حدي إلهي الصعيد وحا اللي يقول لي هذا بتاعك الصومالي هو عنصر والصعيد بالليل وحا لو يقانا يقول عن برقات وحا اللي هذا حلق وملح لا كير بل سيدي أديك وكوستا ما يصير سيدي حالة دي سيدي فايموس تكون نقطة بل أديك أنا فايم هذا اللي يريد بسم الله الرحمن الرحيم لما أرت عيد مبارك عيد وناكسن وأنا لكن كسلام يا ورين قدوميها قدي من لماذا قرقارتها عبد القادر علي يرو سلطان سيد الشيخ عبد الله أحمد علي هودي قدوميها صوماليا قراد حسين قراد عقي وقاس بشير أحمد علي هودي iyo dhammaan intana maqlaysa waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan leeyahay dhammaan bahweynta gorgaarta hawiye ciid mubaarak markii aan u soo gudbo saameyntii iyo hadafkii bilowgii hawshan runtii hawshani dadkii maskaxdooda iyo maankooda ay ka soo maaxatay marka ugu horreyda awalan waan u mahad celinayaa marka labaad waxaan leeyahay shaqadan oo aanan lagu baraarugsanin ayay ka fakerin xaqiiqdii meel wanaagsan ayay fakarkoodiina meel wanaagsan ayuu maray dad walaalaha oo ehela oo ayaga dhexdooda dhibaata dhex taallo oo loo kala sheekeeyey oo hurda ayay hurdadii ka kiciyeen kadibna waxay ka wada hadleen oo istusaaleeyeen goglo iyo shirar badan oo kala duwanna u qabteen sidii waxyaalaha jira loo mayri lahaa la isuguna imaan lahaa waana taariikhda markii ugu horreysay ee goglo noocaasa ay guud ahaan soomaaliya geyga soomaaliya ay ka dhacaan dibaddana ay ka dhacaan taasoo dhaqan iyo aqoon-yahan iyo ganacsate iyo haween aanan loo kala harin taasuna waxay keentay inay cid walba ogaato kuna baraarugto midnimadii gorgaarte waxayna bannaanka soo dhigtay oo ay godkii uu ku daboolnaa ka soo saartay magacii gorgaarte oo aana inta badan la isticmaali jirin oo magacyo kale hiraab iyo magacyo kala duwan la isugu yeeri jiray laakiin magacii weynaa ee awowa nooga tegay dhaxalka ahay bannaankay keentay in gorgaarti midoobo in dadkii walaalaha ay gorgaartana isdoontaan marka aragtida iyo fikirka dadkii ka shaqeeyey oon anigu ka mid ahay oo guddoomiyayaashu ugu horeeyaan oo odayaashu ku jiraan oo halgama axmed cali huday oo ka mid yahay aad baan ugu hambalyaynayaa dhammaan waan isugu hambalyaynaynaa wixii aan qabannay wax way jireen caqabadaha oo yaryar hase ahaatee hawshii aan qabanna hawl aanan la filayn ayay noqotay waxaa soo haray magaalada muqdisho oo 4 milyan oo qofood ka badan ku nooshahay marka laga hadlayo midnimada gorgaarta hawiye
waxyaalahan la yaa mataqaanaa arkay waxaa ka mid a inaan sambal u noqdo inaan meel markaan marayo laleeyahay masar gorgaarte xaaladdii gorgaarte xaggee maraysaa oo dadku magacaygii bedeleen oo magacii gorgaarte igu wacayaan oo la leeyahay dee mataqaanaa gorgaarte iyo howlihiisii iyo mataqaanaa slogan mataqaanaa sambal inaan u nahay marka arrintaas waxay keentay dhiirigelin aad u weyn haddee awlaaddii aan jacaylkaan u qabnay in arrintaasi hagaagtana dee awlaaddii aan dhalnaanba u bixina magacyadoodii oo xilligaa shaqadaada ku jirnay ee December shirar ku dhacayeen ilmaaba noogu dhashay kadibna waxaan u bixina magacii gorgaarte hadda waaba la isula baxaa oo waxaa la yidhahdaa cunugii dhashaba dee gorgaarte miyaan u bixina marka saameyn iska daaya faa'iido badan ayuu dhalay ismarxabayntii iyo walaalayntii iyo iscafiskii dhex martay midnimadii gorgaartaa wey aadaa u mahadsantahay axmed oo kuu soo celiyey aad iyo aad u mahadsan tahay haddana waxaan soo gaarnay gudoomiyaha guud ee guddiga midaynta gorgaate cabdulqaadir cali yarow aadan ugu faraxsannahay caafimaadkaaga intaan gudoomiyuhu soo gelin khayr allah ku siiya intaan gudoomiyuhu soo gelin siciid warbixintiisa wax yar ka dhiman yihiin siciid umulista waaye ugaas bashiir iyo siciid umulista waaye adduunka ilaahay waxaa la yidhahdaa ninku hadduu inuu gooda rabo meesha ugu dambayso markuu kor u goodayo waqti ku dhursanayo carada wuu ka salaaxayaa gawaanu ka dhigaa wuxuu ka dhigaa meestigii ka dhigaa marka ugaas maxamed bashiir iyo arrintaanu noloshaayo oo inay du istaaga u raacno oo siciidaan islahayd waxaa ka dhiman gorgaati inuu hoteelada iyo axmed waxba lagama maqla codkiisa taariikhdaasu waxay kusoo celidhi waxay leeyihiin gudoomiye kusoo celi garaad wax yar kusoo celi okay ayo soco afhayeenka gudaha ee isku xirka dibadda ee gudaha ninka la yidhahda siciid iyo ugaas maxamed bashiir waa umulisto taariikhdadaa sheegi doonta aniguna waa si iftiininayaa waxaan gudoomiyaha rabaa inuu warkiisa ku darsado wuxuu yidhi ninkii maaragtay duulaankii aaday ee markii gelila waa la kala dhijiraan lasoo helay saddexda halaad uu siiyo ninkii waxaa la yidhi maxaa saddexda ninkaan u siisay ninkaas hal ad u siisay mid hal u siisay nimankan kale markaasaana uu yidhi ninkii qiimaha caaqilkaa yidhi caaqilow waa lagu qabsaday aan hadalka hormarsado soo daya uu yidhi tana waa haddaa guulahay gabasaraarkeygii tana waa haddaa goobtiteedigiisinimadi tana waa midii lay garto gubashka leysiye waxaa la rabaa gudoomiyuhu sugaa anigu gudiyaal joognaa buuq baa nugu furan haddii rabaqadaraa waraaweynaa badan siyaasad qaloocanaa nala jirta dalkana sugaa jooga ragga dalka dega jooga waxaa la rabaa inay noodgareeyaan ama ay cid waliba meesha ay ku geesinimo ku muujiso ay ka beremigareeyaan waxaana ku maxamed bashiir iyo waxaa ninka la yidhaahdo kuwaan cabdillah laakiin waxaa ilaahay ii qadaray kulama cuno wadaha leeslama in riski la maray in walaxii
محمد كوادي عاد كدوي hadda maqlas cid walba inay iyagu soo wada gasho ay dhisanka mudaawo waxa waaye shaqo badanaa ka horreysay dadaal badanaa ka horreeyey taariikhdana qoraysa waxaana laga rabaa guddoomiyaha dalka fayow jooga oo wuxuu hayaa maskixiisa fayowdahay ilaahay waa kuliyo nooga kiciyo dadka jira laga raacay iyo inta lamidka ah laga rabaa waa maasadka walaalkalaahada أحمد أنت هذا قدوميها سينا ربع هالمرة إن كل لابتو adna waa waxaan nagu soo biiray قدوميها إنه قدام بيسي waa sax laakiin waxaan nagu soo biiray sultaan kamaal aan ka hormariyo sultaan kamaal soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الخالق الجبار فاطر السماوات العلى أولا كل عام وأنتم بخير قال الله مني ومنكم صالح الأعمال وغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين dhammaan waxaan u taandiintanideynayaa ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed si gaar ahaan ummadda gorgaataha weye meel kasta ay ku leeyihiin daafaha caalamka alle ee kulli caam wa antum bilkhayr waxaa ilaahay mahaddiisa awalan oo aan rabbi uga mahad celinaya khaaliqa ina abuuray subxaanahu watacaala caafimaadka uu siiyey gudoomiyaheena ruuxiga ah mujaahidka ah halkankan u dhabar adeegay aqoontiisa iyo garaadkiisa iyo maskaxdiisaba geliyey gudoomiye cabdiqaadir cali yarow ilaahay subxaana watacaala caafimaadiye ayaa mahadda iskale rabbina xooggiisa iyo ruuxiisa iyo naftiisaba allaha soo celiyo subxaana watacaala inta ka dhiman taasi waa in duco marka waxaan ka maqlaya hadda garaadka codkiisa baan idinku soo gaaray وأرونا وحلي الوادر يسحب لجمدده وقاس بشير يسعيد حق الله مذا أحمد علي الهدي عبد القادر حق أكبر أبيجي أردتان والبا قصر صاري يجرد عجل وحد الله إنه الوادر يسحب لجمدده واحد وابري وأسوة افتيمي ديشا كرقاتاوي بس كرقاتاوي وحا إلهي مهدسة إلى الكوكالة مقنايين وحيارة فربضان وعن أصل في فرعتون لهين لكالة فوقيي وغنين أولالا وحضن تودي لكالة جري وهي عابي وقبلين marka nina wuxuu dareemayay in uu nina ilaahay ba hadda wuxuu dareensiiyey in uu walaal ka maqan yahay nina madigu ahaa oo wuxuu ka baxay madinimadii qof madi ahaa oo madinimada ka baxayna isaga ayaa dareemi kara marka uu walaal helo isaga ayaa dareemi kara لأنه الصومالي ذا كل خد فلسطين أركته إن كان أحيانا سأفير ورجل ورياء إلى عدير وكله ما كان الحمد لله رب العالمين waxaan haystaa dadka maanta ugu tirada badan ugu tayada badan tolkaya ee walaalahaya rabbiga subxaana watacaala madinimada maxamed gorgaate ka saarayna ilaahay baan ku mahadinayaa dadka u saciyey oo intiinan iyo inta kaleetana waa idinka mahad celinaya walaalayaal arrintaani waa arrin socotay weye waa arrin dhaqaaqday weye waa tareen la fulay weye tareenkaasna taariikh sumad leh oo calaamad leh baa lagu fuulaya insha allahu biidni illahi alkariim marka ahaan doonto wax hadhow la qarinayo waxay ahaanaysaa wax masxafyada caalamka la dhigo ee qoro sababtoo ah taariikhu taktubu walaa tunsa taariikhdu waxbay qortaa waxbay sama ilowdo taariikhda caynkaasi halgankaa la soo galay sida maalin walba swal laynoo xusuusiya ayaa laysu xusuusin doonaa ragga u dhabar adeega insha allahu biidni illahi alkariim ninka tareenka ka haro ka dhacaana isagay la jirtaa laakiin waxaa idinkula dardaarmayaa
tareen walbo la dhaqaajinayo hadda waxa uu baahan yahay spare partiskiisa in lala daba joogo arrintan marka yaa spare parties u ah waxa uu ah dadka ikhlaaska iyo niyadda ay ka tahay waxa spare parties u ah dadka walaalnimadu ay dab ka tahay waxa spare parties u ah dadka maanta raba inay gurgaarta isu keenaan oo xuduudda iyo tayada iyo tabarta iyo caqliga gurgaartaba ay mideeyaan walaalo kala maqan maanta intaa kala maqnaa haddii la mideeyo waa nimco ilaahay subxaanahu watacaala maanta caalamkii baa rag urursanaya rag wada dhashay ee gurab wada degan ee gacantooda istaago oo guri wada degan oo kala fogaa waa arrin marka hore laga subxaanaysanayay maantana waa mid ilaahay lagu mahadinayo alxamdulilahi rabbilcaalamiin halgankaana waxyaalo fara badan aan ka dhaxlay waxaa ka mid a wanaagga waxaan ka dhaxlay isbarashada waxaan ka dhaxlay walaalnimada waxaan ka dhaxlay in aan maanta magaalo kastoo adduunka aan tago daafaha caalamka inaanan marti ku ahayn guri reer gorgaarta albaabkiisa aan qaraacayo waa ilaahay mahadi rabbi subxaana watacaala idinkana waxaa idin leeyahay juhdigiina iyo tabartiin iyo taagtiman allah barakeeyo aad iyo aadna si gaar waxaan u salaamaya ugaas maxamed bashiir iyo jaraad cagay oo odayaasheeda dhaqanka waan leeyahay kulla caam wa antum bilkhayr gudoomiyahayga iyo dhammaantiinba waxaa idin leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala kuwa cidka min annaar ilaahay naarta ka koriyo allah ina ka dhigo kuwa juhdigoodna joogka khayr qaba allah ka dhigo insha allahu biidnillahi alkariim suldaan kamaal aad iyo aadaad u mahadsan tahay kulanka aad nagu soo birtay waa kaaga mahad celinaynaa kulle maxamed suldaan ugaas maxamed bashiir waa wacaya weli telefoonkiisu u dhacaya aadaad kamaal aad u mahadsan tahay gudoomiyuhu waana sugaa sicid adoo soo gaabinaya kolley waxaan u malaynayaa waxaa tiri gudoomiye ka horreysay soo dhawow kolley gudoomiyuhu insha allah waan sii doonaa bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan rabaa inaan hal meel uga laabto ugu horreyn waxaan salaamayaa garaad xuseen xagay waxaan rabaa inaan walaalaha gorgaarta xasuusiyo hawsha bilowgeydii markii aan bilaabaynay garaadku wuxuu yidhi siciid iyo ugaas bashiir waa umulis oo kale wax badan ay og yihiin waxaan rabaa caawa inaan walaalaha gorgaarta dhegahooda maqashiyo waxa hawshan markii aan bilaabaynay qabaqaabada bilowgii ugu horreeyey kulankii la isugu keenayay walaalihii gorgaarte ee dhaqanka ahaa waxaa dhacday hawshaas markii aan qabanaynay waxaanu bilownay inaan raadino salaadiinta ugu waaweyn gorgaartaha weyn waxaan xusi karaa inaan u tagnay 7 oday dhaqan oo ragga ugu dhaqanka ugu sarreeya oo maanta mataqaana magac iyo sumcadna kule magaalada deeganna inaan u tagno qadiyadan aan kala hadalnay ilaahay mahadii intaas nin walba aan u tagaynay oo waqti ballan uu noo dhigayo oo muddada noo dheeraynayay waxaan helnay garaad xuseen garaad cagay oo aan ugu tagno gurigiisa garaadka markaan arrintii u sheegno la fadhiisanay ayuu garaadku wuxuu yidhi maanta wixii ka dambeeya gurigan ayaan gorgaarte fadhigiisii ka dhigay gogosha gorgaartana halkaanay taallaa foolku guulaanahay ilaahay idinkiis waxaan ballan qaadaa inaan salaadiintii oo dhan isu keeno marka waxaa ilaahay qadaray fadligiisii dadaalkiisana ay ku noqotay in wixii salaadiinahoo dhammaystiran mid walba aanu si fudud u helnay markuu garaadku hawsha nala bilaabay marka intaasaan rabaa walaalaha midnimada gorgaarto dhan inaan xasuusiyo dadaalkii juhdigii aan la hilmaami karin ugaas maxamed bashiirna qayb weyn ayuu ka ahaa oo farsamo yaqaan aad shaqada u yaqaan ayuu ahaa oo wax badan nala soo qabtay intaasaan kusii dari lahaa aad iyo aad u mahadsan tahay gudoomiye wax badan aad sugtay adigoo aad u mahadsan waa ciid waxa soo qabsoomay meesha wax marayaan soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين انت هذا اسمك ليس iyo inta kale maxay haday hawada nagala socotaba salaan iyo mubaaraka lilciid alfitr ayaan u soo gudbinayaa alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa maxay haday na soo gaarsiiyey inaan ku ciidno farxad iyo maxay haday rayn aan ku ciidno annagoo maxay haday midaysan waa ciiddii ugu horreysay oo gorgaate oo midaysan oo is afgartay oo israacsan oo aan wax mucaaradada iyo iska horimaad lahayn soo gaaray waa ciiddii ugu horreysay waana ciid ciid alfitri ah khayr badan iyo wanaag ayaan u rajaynayaa dadka guud ahaan Soomaali gaar ahaanna gorgaate alxamdulilah rabbil caalamiin ducadii iyo garab istaagii
iyo maxay ahayd dhiirigelintii layla garab istaagay anigoo xanuunsanna sidaasoo kale waan ka mahad celinayaa guud ahaan dadkii reer Gorgaate iyo Soomaali weyn oo maartay dad badan ay maartay soo waceen markii aan soo naaxay oo aan soo toosay 35 cisho markii aan ku jiray kooma ku jiray ayaa maxay ahayd dad badani ay soo waceen oo aan Gorgaataha xataa ka mid ahayn asxaab fara badan iyo dad awal yaqiinay iyo wixii Facebook igala socday marka alxamdulillah rabbil caalamiin aad iyo aad waxaan u mahadnaqayaa ugaas Maxamed Bashiir ugu horeynta oo aan xasuusto isla maalintii 28 September markii la furay qolkaas isaga qudhiisana lagu soo daray isla maalintii baa asna soo hadlay oo maalintii axadda ahayd aad iyo aad aan aniga isagu isu baranay oo codkiisa iigu horreysay waxaan kaloo mahad celinayaa garaad Xuseen oo ah ninka suurto geliyay in maxay ahayd la isu keeno odayaashii dhaqanka ee beelweynta Gorgaate Hawiye aad iyo aad garaad Xuseen oo ma ilowsanin waxqabadkaagii iyo dadaalkii aad samaysay horena waad igu sheegtay maxay ahayd oo si qaas ah aniga adigu maraan wada hadalnay telefoon ku wada hadalnay waan ognahay qof kasta dadaalka Siciid sameeyay iyo hawsha uu qabtay iyo heerka uu marsiiyay iyo sida aad yani waxaad ku tilmaantay umuliso oo inuu wax badan og yahay nacam annaga qudhayadu waan ognahay Siciid kaalinta uu ka qaatay midnimada Gorgaate iyo maartay juhdiga uu geliyay oo uu maxay ahayd habeenii maalinba u soo jeeday dhaxan iyo maxay ahayd taftiish iyo nuqdado xiran iyo askar iyo wax walba iyo baasiin uu maartay ku isticmaalaya gaarigiisa inuu maartay geliyay waan ognahay waxaas oo dhan waxa weeyaan xalay mar aan maartay la igu casuumay qolkii Maxamed Gorgaate waxaan xasuustaa nin dadkii ka mid ah oo yiri qof Gorgaatenimo hawl u qabtay in lagu amaano maba ahan oo yiri isagii baaba maxay ahayd isagii baa wixii uu dantiisii qabsaday hawshii oo isagu lahayo qabtay marka qof hadduu isagu meel u seexdo xaarxaarto oo nadiifiyo qodxaha ka saaro isagu hadduu amaano wax macna ma samaynayso waxa loo baahan yahay in ay hawshu noqoto anaa leh hawsha anaa leh yani waa aniga waxaad doonaya inuu istoosiyo oo barkintiisa toosisto oo uu gobashiisa hagaagsado midnimada Gorgaatena saas oo kale la mid tahay annaga dhani yani markii aan safro on meel aado on jeebkayga isticmaalo on hawl qabto macnaheedu ma aha in aniga laygu ammaanayo anigu wax weeyaan hawl u baahneed inaan qabsado anigu ayaan qabanayaa marka wax weeyaan ugaasyada iyo salaadiinta iyo hawsha dadka nala galay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waana wax loo baahnaa inay maaragtay midda kale wax weeyaan cid la eedi karo hadda maba jirtaba sababtoo ah hawshan waa hawl aad u daba dheereed oo mar hore dhacday oo boqolaal sano soo jirtay ilaah baana haddeer dadkii garansiiyey in ay danahoodii gartaan hawshaanina sida macnaha hadda uu Suldaan Kamaal u yiri nin madi ahay oo lasoo maxay ahayd walaal helay hadda oo wiil cusub la dhashay abihii wiil cusub u dhalay ay la mid yihiin Maxamed Gorgaate yiri taas waa run gabyaa hore aan maqlay oo yiri walaal inuu macaan yahay ninkii madiyahaaba og ninkii laba la toogaystay macnaha laba ninkii la feersamo iska celiyay ayaa tacalinkeedii yiri marka waxa weeyaan waa run ninku hadduu madi yahay markii uu helo walaal oo aabihii wiil u dhalo wuxuu dareemayaa markaas irtiyaax iyo maxay ahayd awood iyo power iyo wuxuu dareemayaa maxay ahayd wanaag markuu laakiin kaligiis iyo hadii jeer waa caqdadaysan yahay oo wuxuu dareemayaa cidlo iyo maartay loneliness marka alxamdulillah rabbil caalamiin hadda waa la is afgartay mucaaradadina ma jirto wax walbaana way hagaagayaan insha Allah laakiin waxaan u baahanahay masiid min al juhd yani in la sii badiyo hawshan oo garaad cagay iyo Siciid ayaga ugu muhiimsan hadda hawsha socota markaan sababtoo ah waxa la rabo in laga dhaadhiciyo arrintan oo laga gado waa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan qabiilada Hawiye kaliya ma aha waa qabiil kasta oo Soomaaliya marka aham shay dadkeena gudaha noo jooga oo garaad cagay iyo ninka la yiraahdo Ilaahay idinkiis markii dayaraduhu furmaan garaadku u tagi doona gurigiisii Siciidna waaba u joogaa wali xamar
يعني أهم شيء وحويان ضدك جوجا حمر هوش أي محيا قبطان وكم مهم سنتا مدة أنه عن قبرنا سببته أنه دبدان جوجنا دبدنا هذا وحوي ضدك وحجرتك يا جناح ستدي يا أهمية دي يردن الجوده يجرتا أنه وحن كليه وكف لنا هاي إن محيا على كسو هذا لنا وأن محيا هذا سو وحي دي رجلنا وحي مارتي قارن سو أورورنا هوشي هل كاس بان محيا كف لنا لكن هوش مهم دي وسعيد iyo garaad xuseen cage labadaas nin iyo dadkii kale xagga joogay way jiraan rag kale ayaguna oo axmed ninka la yiraahdo sheekh cabdi jaahweyn iyo ninka la yiraahdo cabdiqaadir xasan nuur iyo ugaas maxamed bashiir oo maarta isaguna ah laf dhabarta hawshaan oo dhan kala wada iyo farsamo yaqaanka ninkaasina waxa weeyaan waa muhiim aad ah marka waxaan rabnaa inaad hawshaas aad iyo aad u qabataan si aan maaragtay aan u gaarno hadafka iyaga insha allah waana mahadsantihiin aad iyo aad waad mahadsantahay mudane gudoomiye waxaan sheegnay hawshu hadda meeshay maraya iyo wixii noo qabsoomay waxaan marka rabnaa annagoo israacsiinayna maxaa noo dhiman waxa noo dhiman maxaase naga hor taagan annagoo israacsiinayna insha allah waxaan rabaa inaan mataqaanaa ku soo dhaweeyo uwaas maxamed bashiir aan ku bilaabo ku dhow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله عليه وسلم وأدعو بشير الله أكبرك يا قدوميو وحكو ختمي سنة والعالم كل كنت على لقم بحي مكرتين واسلا ويكوت لقاقود بمكرتين اسم البورسانة ورقاتي اسمها بورسانة لقاقود بمكرتين عد كودوي احمد عد كودوي محمد قرقات عرضكي اهابا لا قدب ما قارتن محمد قرقات انه قب يحي ما قارتن نعم نعم ما قارت بارك الله فيك سلام مع سوكارا قول اسلام مع سوكارا لقى قود به ما قاراتين هذه وما قاراتين اسمه ما سوكارا بخابتا لقى قود به ما قاراتين تقول تقصعوا ما شاء الله تسعوا بس الآن يا برنامج وحان كنت ذاليا يقرأ لهذا حضان أمريكا يركبكوا معلومة حاول وحاب يخابلنا ساعات يا وقت يقرأ لهذا وحان تابعين نروح الخوطة تابتو يوحي الروت مرة waan isognahay meeshaan hadda marayno waan wada tilmaamnay meel wanaagsan inaan marayno laakiin meel kasii wanaagsan aan u soconnaa marka maxaa noo dhiman inaan meeshaas gaarnana maxaa naga hor taagan labadaba adoo israacsanahay بارك الله فيكم وش هذا القارن وش الشغلي وحي وقت ما يحاول يا محمد صبح وضبط فتاج الحكومة سيدي عن قدر الله ويقبل بركاته guudahaan ama kala qaadin sidaan ugu gudbi lahayn waxaweye oo dhan inaan midayno iyo soomaaliyiin intaa hataa qodobkaa inaada qolka kale inoo taagan waxaa waaye inaynu ka midha dhalino dardar gelino halgankii 19 sebtembar ka soo bilowday ee intaas oo marxaladood soo maray in aynu madashkii aynu ku ballannay ee ahayd todobada 4 bisha toddobaad sidaan u gaari lahayn duruufo adag baa jira ubaxaynu guruushaynu gaarnay inaan midho dhalinteeda u sii mudayno marxaladda jirta awgeedna aynu go-aan qaadano ah marxalad ku habboon in aynu mataqaanaay u riixino suurtagal bay noqonaysaa una diyaargaroono dhamaystirka midnimada gurgaataawiye iyo gurgurdiga maxamed gurgaate meel ay joogaanbana aynu isku xidhno haddaba walaalaha gurgaataawiye meel ay joogaanba aan waa beriisan yihiin laakiin aan midnimadaas samayno ayaa inoo waxaysan waxaan mar labaad u mahadcelinayaa oo aan carabka maqlayaa caraaye oo raggii lamidka ahaa
وكياشي هلكن كانها قراد أحمد قراد حسين ورنتي غصرقة ووقلي وقلبي مدمن قرقاتها وين وواحد مرياليا يوميها برلمان يا مرسل عادي ومتي يسعيد هي وضمان هناك كلا غيبات هوشان وواحد مرياليا إمام محمد يوسف أيام واحد مرياليا وكا وحامل الكوري وكبنيبو أنا كنت أقول لك حتى شرعان كنت قاعد مع جودها أول مرة كنت أقول لك كراتو أنا كنت كواهي وشيء كنت أفكر أن يقام وأنا خمسة بتاعت أنا على الله أنا وحي لقى كنت أقول له حول وطوفان وهذا حالة هو هذا كنت لما كنت waayahay hadda waxaan waa aad u mahadsantahay ugaasana waxaan sultaan sayid cabdullaahi sultaan sayid cabdullaahi maxaad isleedahay waad ogtahay waxa hadda aan meeshan soo gaarnay maxaa noo dhiman oo ay tahay in la qabto aragtidaada maxaase naga hortaagan isla su-aashaas insha allah sayid cabdullaahi way maqashaa soo maa يا عبد الله إمام ما مغش عبد الله عبد الله إمام مغلو كل وحنا ملاينا تلفون وحاجة غلطانة عبد الله إمام مغش ده أمثلة يا ويا هذا واحد فينا يا قرات صدو هذا يوم وما تدري ويوقف صومي ولا شيء مع هذا طلبت أكثر من هيدا يا عيال طلبت هو شيء يلا تكي بشيل بشيل وأنتي إمامك ما قبل زماني وكل واحد إمام محمد يوسف عليه إمام أيا وهاي بشكل طلبات في دراجة تيسي أيا هرتو أجدد كل الدنيا جدد الله مراينو سيدي وليك سيدي لو سوقي بكراي يسي سورة القطاي والغد اشتغينا لكن وعيش تاقنين وآنكي حفيظك قرقاتي لغو كاري وضروبك إمام قرقاي وآمين صور لحد شيء كالحداشر وعن إلهي كبرين عيك الحداشر كل ما تو حتى ما سنة وعن قبائل معاس أنك أبقى انت لك الحرية انا يا عدوة ببنش الجوت والحقيسة تاخذ يوم المارسية نعم اسكاسيت كشغينو عدوة ببنش الجوت ايك أبقاته مالنتي يلفلو سيغلطة يعني هواي واسوجيري يقعانك وعسكري وهوينك وهذا لك الدول مركة وهيلتها إلى ما سمينو هديك لو فرق ماشي كلشي soo noqono intii maalintii aan isku keenay intii lagu siyaari karo lana ku aamiyo mar labaad kulushii iyo dibadda soo qabtay laguna dhaqaajirahay maaragtay wixii la gaarana lagu filahay lagana bartileeyahay saas ayay la tahay intii la kala xereeyay maaragtay wadajir aan la qaban karin laakiin gargaar loo kala shaqay karay ila tahay laakiin rag badan caqliga ku haay waxaan soo dhaweynaa cid kasta caqliga iyo horuka u aragto inaan maaragtay soo dhaweynaa way naga go'an tahay anagu waa un kale ku xurmayno go'aankaan leenahay caqliga dadku ku buuxaa soo dhawaada aad iyo aadan u mahadsantihiin waxayna ila tahay in laga anfurtaado beribno go'aanka asaga ahay anagu waan soo dhamaynay hoos iyo istaafsiiskii iyo dadku inuu iskarto weenahay iyo ma yeeli karaa lama yeeli karo waa kasoo gudubnay hadda waxa waaye isla raamashadii iyo isla goobtigidii iyo dhaqaajintii loo kala aadaya wasaaradii wasiirada loo magacaabi lahay loo kicinahay ayaa noo dhiman waxayna ku xiran tahay in waddooyinku ay furmaan asatiisa dhawaada
هذه عادة مع سنتاي سيد سيد عبد الله هو صار نقطة ملاين هاي مقلاي سيد عبد الله ما مقطع ها واكم مقلا هذا وايجو لك هذا واكم مقليا كل يكون ما دام أدوك كم مقنعت وحنا هور مرينا يا ضد وحنا جينا يا مركا أو حتى إلهي مركا كل وحن سلايا عطنا كمال وقدر الله سلطان كمال كله واسعد الله اوقاتكم وقتكم اوقاتنا الله waxaa hadda codkaaga hoos u dhacay kamaal codkaaga hoos u dhacay kor u qaad kamaal sidii aynu inta waxay noo furmayaan aan u gadi lahayn oo dadka uga gadi lahayn oo qof walba looga iibin lahaa oo qof walba oo gorgaataa caqligiisa lagu subi lahaa soomaali weyna la gaari lahaa waxaa inoo taalo shaqo dheer shaqadaas inta lasoo qabtay waxaanu taaganahay hadda albaabkii ugu dameeyey ee guntiga diisha looga xiran lahaa baan taaganahay midna waa idinku darayaayo adduunka waxaan la mucaaradin faa'iido ma helaan نبي محمد بن معارضة عليه الصلاة والسلام رسول كان عليه الصلاة والسلام والدين كان إسكي شرفت كرامة ذلك مبدي أنا كنت صارتبا قال المعارضة مركا معارض هو في تميم أو أركننا وقت يعني في تميم بإيه في تميم إيه بعض قاطع صوته حكرار ما بكسي قاطع قفك معارضة عرفتوا إسكهر ورير قرقاتا وإنه كبجنا يا وحوق هذا لنا لكن وحا لينو كباهين وحا إنو ديمان وحا بسوكولا يا هذا الكيغا وحا إنو دمين ووعي قلين سيد قراب كيشيغين وغاسكوا ووعي قلين إنتفكي ووعي قلين أي نطبقة أي نمطغان أي نسوتاقنو وماشي وعي قلين تينو جوكتان كسي قرقاضن والسلام عليكم هذه هذا ما سنتها سلطان كمال وأسلق قرني وحين نوقف صومي والله الشيء ماشي أصعنا إني تاي جوجشي وجودن بس إن قارنه واحد النجار تاجنا إني تاي كورونا فيروس إيه كلا حرنان سيد الله سعطان أنتوا قدومي عن الصدي هذانا كورونا فيروس كان وحن ويمت أو وحن لقى شيء هذا سنام بدن متقنا إسبير كل جزء عدي واحد مودع عقا إنه دبوا دعي قفل بوحن ربع متقنا إن سيو كلوسين منت أو ضد كشعب كلا قطابه أو كلا حلو inay hamigooda iyo kartidooda iyo hawshoodaba ay kor u qaadaan dadkana uu kula dardaarmo anoo rajaynaya kolley garaadkuna inuu isaguna raacsiin doono xoogaa dhinaciisa ugaanta inuu xoogaasna sii raacsiin doono insha allahu tacaala marka waxaan rabaa hadda inaan siiyo ugu hormariya sayid cabdullaahi suldaanka soo dhawow daqiiqadii aad dadka kula hadli lahayd ama aad maaragtay ku wacyigelinta ahaa inaanay dhihi jabin inaanay u qaadan in waxoos u dhaceen
laakiin waxa dhacay ay yiraahdeen coronavirus oo la kala xirmay iyo hawlo kale iyo caafimaad darro timid oo guddoomiyaha la soo diristay laakiin hawshu sida aan u wada fadhiinaba oo maanta sanaadiintii oo dhan ay halkan ku wada sugan tahay nus ka mid ay halkan ku wada sugan yihiin inaan waxba aysan naga halaabin soo dhowow asalaamu calaykum muxuu ahaa sida hadda salaadiinta iga horreysa ay sheegeen runtii muxuu ahaa hadda mainka annagu aan hayna maanta oo ugu muhiimsan oo macnada waxaan leeyahay carqaladda ugu weyn ee maantana hortaagan horta sida la sheegay waa cudurkan la yidhaahdo coronavirus marka coronada ma ay keenin kaliya in laysu tegi waayo oo shirarkii la qaban lahaa meelihii lagu shiri lahaa iyo maaragta muxuu ahay howlihii noo socda kaliya inay istaajiso ma ahan bal waxaan leeyahay macnawiyaadkii dadka xataa iyo maaragtay moraalkii laftigiisa waa maaragta hoos ayuu u dhacay kii shaqo waayey kii maaragtay cudurkii ka baqaya kii lockdown ama maaragtay meel isku xiray marka siyaabo badan oo u saameynaya runtii maaragta coronavirusku muxuu ahaa yani arrimihayna aan wadnay halgankeennii aan maaragta aan doonayna inuu hor u socdo laakiin waxaan leeyahay maaragta runtii arrintan hadda socota qofka yani tartiibka laftigiisa marmara loo baahan yahay xoogaa inaan arrintii la degdejin oo maaragta markii wixii degdeg lagu gaaro oo degdeg lagu sameeyo haddana waxaa laga yaabaa inay berito dhaliilo yeeshaan ama maaragtay khaladaad kale ay ka dhacaan ama dadka xiisadii ay inta ka xiisa dhacaan ay isaga tagaan marka arrintan tartiibka hadda u socota runtii oo maaragtay yani waktiga xoogaa qaadanaysa waxaan aniga fikrad ahaan waxaan qabaa inay tahay arrin muxuu ahaa sii adkeynaysa halganka iyaga sii adkeynaysa oo maaragtay si yani culayska sii saaraysa marka waxaan dhihi lahaa marka carqalada hadda taagan insha allah oo kulley waa laga baxayaa dadkina waxaan ugu baaqayaa maaragta muxuu ahaa inaysan moraalkii ka dhiman oo maaragta maxnawiyaadkoodii iyo muxuu ahaa iyo niyaddii ay u hayaan arrintan inaysan niyaddooda jabin oo markaa halgankii meeshii shalayta laga sii wado muxuu ahaa laga wada tashado wixii la samayn lahaa maalinta ugu horreysoo la furo oo diyaaradihii iyo adduunkii iyo xiriirkii isu furmo xaggii laga bilaabi lahaa meeshii muxuu ahaa lagu xajin lahaa waxaasoo dhan maaragta in hadda laga sii wada hadlo ayay maaragta arrinta haddana tala ahaan aan usoo jeedin lahaa marka waxaan leeyahay maaragta ugu dambaystii arrintan culayskan allaha naga qaado dhinaciisa allahna mariyo cudurkan safareenka ah oo maanta socda ilaahay waxaan ka baryaynaa inuusan waxba noogu darin oo dhinacan iyaga oo maro inta muslimiinta ka dul qaado marka arrintu hadda kolley culayskeeda waxaan u malaynayaa intaasun bay kusoo ururtay cid kale oo hadda maanta sababo kale oo hadda aan caddayn karno ama meeshaan aan ka sheegi karno hadda uma jeedo sida raggii iga horreysay u sheegeen marka aniga intaasaan uga baxaya haddii alla yidhi suldaan sayid cabdullaahi aad iyo aad u mahadsan tahay haddana waxaan siinaa ugaas maxamed bashiir daqiiqadiisa kalowsinka ugaas soo dhow bismillah waa gabagaba waxaan oran lahaa intii hadda aynu ku soo hadalay guul mar labaadna dhammaan madaxda dhaqanka guddoomiyaheenna guud afhayeenka iyo haliyey ruuta ayaan u mahad celinayaa allahna kulmiyeyna waa maadoo dhasaas kale anigu waxaan ku dari lahaa kow wixii waynu isla fahmnay dhibta hadda aynu hortaagan waxaa weeye shirkii afarta bisha toddobaad aan ballaminay xaaladda jirta awgeed ma muuqdo inuu hirgelayo mashriq iyo maqrib in laysugu yimaadana ballankeenu yahay wacyigelintuna inay gaadho gorgaato ku dhammaato soomaali weyna ay gogashaa ka soo qayb gashaa ballankeenu ahaa soomaali weyn kama soo qaybgeli karto xaaladda jirta awgeed laysuma dhamsi suldaanku sheegay qoys u gudbi karna xabarna ma jiro magaalooyin kalena ma jiro sidaa awgeed waxaan oran lahaa guddiga sare oo guddoomiye allaha noo caafiye allaha noo caafiye ugu hamadnale cabdiqaadir cali yarow iyo guddiga iyaga arrimaha gudaha oo guddoomiyaha noo yahay allah xaafida garaad xuseen garaad maxamuud garaad agay annahan guddoomiye kixiyaha ka ahay afhayeenka guud oo labada guddiba isku xiraha inta iyada iyo guddigaas inaynu ka shawrno suurtagalka si officialan ugu dhawaaqnay
inayna muhimgelin dadkana si ay ugu diyaargaroobaan wacyigelinta aan u dardargelin lahayn inaynu madasha laftigeedu waktigii ay dhici lahayd duruufaha jira awgeed inaan bulshada wacyigelinta ka mid tahay ilaan bulshadii waxay sugaysaa shir waktiyeysan inaynu arrintaa guddiga sare iyo guddiga arrimaha gudaha aan si wada hadalno si aynu wakti mucayana bulshada ugu sheegno hadduu kan inoo suurageliyana ugu sheegno inoo suurageliyana aan wakti kale oo mucayan ah u sheegno iyadoo taas mar labaad guddiga dhaqanka golaha dhaqanka gorgaataawiye imaamka guud uu hogaaminayo ayaa siinta ugu dambaysa lahaanayeen laakiin barabooska iyo hawshu inay ka timaado guddiga sare iyo guddiga arrimaha gudaha qabanqaabada midnimada gorgaate oo iskaashaday inuu baraboosku ka yimaado si official iyo xiriir wixii lagu noqdaan ayaan marka hore ku jeedin lahaa wacyigelintana waa inaan gaarsiino xamar waa wacyigelisan tahay waa inaan gobollada gorgaate degan yahay sida shabeellada dhexe shabeellada hoose shabeellada mudug inaynu gobollada fursadda kala siino waktigay habboonaato diyaaradu waa in qorshaha ku darsano yaanona si wacyigelintu usoo dambiidiyo inuu joogto noqdo oo ruutigan ka codsanayo inuu noo joogteeyo miidiyahan asbuuciiba hal mar inaan rag kala duwan soo galaan oo arrintaa aan wadno wabillahi tawfiiq waayahay haddana waxaan siinayaa garaad cagay insha allah garaad xuseen soo dhowow garaad ku soo dhowow garaad xuseen ugaas maxamed aadaad u mahadsan tahay iyo guddoomiye waxaan filayaa garaadku waa ka dhacay marka insha allahu tacaala waa yahay waxaan siinayaa hadda afhayeenka haddana waa soo gebagabaynaynaa insha allah marka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan kusoo gabagabay lahaa wixii rag u istaago rabbina loo tala saarto way hirgalaan hawlaha iyo duruufaha dhimana si technicala oo guddiyada sare ay uga wada hadlaan dibna loogu celiyo odayaashii dhaqanka kadibna iclaam guud aan ka soo saarno oo waqtiyeysan shirkana aanu dib ugu dhigan ayaan ka soo saari doonaa hawlaha shaqo oo noo dhimano technicalka oo aad u fara badan yihiin shirarka gobollada ka dhici doona iyo wacyigelintii iyo dib in mataqaana boorka la isaga jafo shaqooyinkii hoose ka dhimanaa dhaqanka la istuseeyey guud ahaan hawlaha midnimada gorgaarte sidoodii iyo si ka qurux badan bay u socon doonaan insha allahu tacaala ilaahay baa ku mahadsan inaan weli caafimaad qabno caqligii iyo maskaxdii shalay aan ku wadnan aan haysanno halkeedii meel ka qurux badan ayaan usii wadi doonaa insha allahu tacaala dhammaanna midnimada gorgaarte meel kastay joogaan waxaan leeyahay hambalyo bisha ciidda ciidulfitriga insha allahu tacaala wax kastana guul bay noogu dhammaan doonaan hawshana halkeedii ayay kasii socon doontaa intaas ayaan leeyahay insha allahu tacaala aad iyo aad guddoomiye adigoo noo soo gabagabaynayna daqiiqadaadi soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم وما تسنت أحمد وحويان هرتا فرسمدا هبكا أي كون أكسنت هاي وقاس محمد بشير هذا الشيء وقاس محمد بشير يعني وحويان وعاقل وأنا قف سياسية هذه آدنا محي هذه وورها هي مرحلة لها أي كون أكسنت هاي مركي للربو إن وحا sidii loogu talagalay halkii lagu ballamay in la gaarsiiyo marka aad iyo aad ayaan ugu waafaqay anigu talada uu soo jeediyey oo ah in maaragtay guddida sare midnimada gorgaate hawiye iyo guddida dhaqanka iyo odayaasha dhaqanka salaadiinta iyo culummada iyo dadka xamar jooga in ay maaragtay ka wada hadlaan qaabkii iyo waqtiyeyntii dib loogu dhigi lahaa maxay ahaday shirkii la iclaaniyey 4 bisha 7 2020 sababtoo ah waxa muuqata in aysan suurtagal ahayn maadaama aan la heli karin diyaarado lagu safro oo aan la yani aan xataa xukuumadaha iyo wasaaradaha caafimaadkuba aysan ogolayn
in maaragtay shirar waaweyn la iskugu yimaado oo dad aad u fara badan ay meel ku kulmaan hoola ama maxay ahayd hool shirarka loogu talagalay marka taasi waxa weeyaan hadda mustaxiil ay ka dhigtay in ay suurtagal noqoto gaaritaankii 4 bisha 7 caqabadahaas dartood waa in dib loo dhigo shirkii dib u dhigaasna waa in maaragtay mid mutafaqan caleyh uu noqdo oo guddida odayaasha iyo dhaqanka iyo maxay ahaday guddida annaga nagu matasha magaalada xamar oo afhayeenku ugu horeeyo Saciid Macalin Bashiir in aan maxay ahaday ka wada tashano oo aan iska aragno si gooniya uga tashano ayaa maxay ahaday aad iyo aad loogu baahan yahay ilaahay idankiisna anigu arbacada soo socota inaan isbitaalka ka baxayo ii sheegeen dhaqaatiirtu marka aan guriga tago haddii aan la yiraahdo waxaan heli doonaa fursad badan oo aan dadkii kula xiriiro oo aan maxay ahayd wacyigelintii iyo habkii loo sameynayay aan maxay ahayd taladayda ka dhiibto ilaahay idankiisna marka rajadu aad ay u fiican tahay aad iyo aad ay u fiican tahay waxaan telefoonna kula hadlay salaadiin aad u fara badan oo maxamed gurgaate beesha madhibaan ah waxaan la kulmay dad kale oo iyaguna ah maxamuud gurgaate iyo silcis iyo maxay ahayd wadalaanba dad badan aan la hadlay oon wada hadalnay oo aan maxay ahayd ka wada hadalnay arrintaani sida ay maaragtay ku wanaagsan tahay iyo sida ay tahay in maaragtay loo horumariyo marka ilaahay idankiis dadku horta waxa weeyaan waa la isku waafaqsan yahay qof diidan lama arko qof maaragtay ka hor yimidna anigu maba aragba xaqiiqatan qof walbaaba uu ka soo duceeyey waana maxay ahayd wuxuuna noo soo jeediyey ama noo soo diray tahniyad iyo ammaan iyo maaragtay farxad ayay dadkii oo dhan isku raaceen marka wax maaragtay dhibaataha ma jiraan laakiin dhibaatooyinka dabiiciga ah oo hadda jira oo kaarisadaas ay ka mid tahay COVID-19ka oo maxay ahayd haddartan adduunka oo dhan uu kala xiran yahay ayaa maaragtay keentay dib u dhaca intiisa badan xataa aniga xanuunkayga keliya ma aha waxa habacsanaanta keenay waxa weeyaan hadda matalan garaad cagay oo kale waa waddanka turkiga wuxuu joogo weli uu dayaarad uu raaco oo soomaaliya u raaco uu kala yahay dad badan oo saas oo kale ah meelo badan ay ku xayiran yihiin qaar badana dad badana tegi lahay oo waddanka tegi lahay oo shirarka ka qayb geli lahay oo hawsha wadi lahay laakiin lama helayo dayaarado la raaco lama helayo transport iyo hab lagu tago waddankii lamana helayo lamana ogolaba oo adduunyadii wax la leeyahay laysuma iman karo oo dadku si ayna cudurkii looga badbaado waa in la kala fogaado marka arrimahaas darteed waa inaan sugno sabr yeelano ilaahay idankiis waan sabraynaa haddii alla yiraahdo laakiin guud ahaan marka la eego arrinta gurgaate waxa weeyaan waa wax qabad aad u weyn waana wax maaragtay mar hore loo baahnaa inay bilaabato laakiin birabbi subxaana watacaala yacni idankiisay ku noqotay inay mar dhow bilaabato 28 bishii 9 ay soo bilaabatay oo maantana ay meel wanaagsan ay marayso alxamdulilah rabbilcaalamiin yacni maanta waxaan dareemayaa anigu يعني انتي هore inaan maartay ka wanaagsanahay oo aan ka macrifo badanahay oo aan ka caansanahay oo aan asxaab badan leeyahay dadaanan hore u maqli jirin adiga Axmed Cali Huday waligay kuma aanan maqal gurgaate arrintiisa ka hor xamdi kalgacal ma aanan maqal mana arag maxay haday ugaas Maxamed Bashiir ma oqoon maxay haday garaad cagay ma aanan oqoon Saciid Macalin Bashiir ma aanan oqoon سلطان سيد عبد الله ما نقول يعني waxa meeshii ka dhacday waxa weyn waa ijaabo aan la koobi karin xaqiiqatan waa wax aan la soo koobi karin oo aad iyo aad u wanaagsan waxaan bartay ugu yaraan 50 suldaan oo wada madhibaan ah yani qabaa'ilkii iyo jilibiyadii lafihii iyo maxay haday beelihii ay u kala baxayeen maxamed gurgaate ayaan haddeer bartay kulligood يعني waxaan bartay wax badan oo iga daboolay يعني marka kulli xaranka fiiha baraka marka ay carabtu ku mahmaayaan waa sidaas oo kale wax aadan filanayn ayaa ka soo baxay arrintii waxyaalaha aan la filanayna ka soo baxay maanta waxaan leeyahay يعني asxaab يعني aan la koobi karin oo ciidaas ka badan sida uu maartay sultan Kamal Bow sheegay uu yiri meel kasto aan tago guri gurgaataan gargaraacaya markaas la iga furayaa la leeyahay sultan Kamal welcome marka arrintaani waa arrin alla kusiya la yiraahdo oo kale يعني wax basiida ma aha wax sahlan ma aha waana mahadsantiin assalaamu calaykum
aad iyo aad u mahadsantahay gudoomiye adigana sultan sayid sheekh cabdullaahi naga dhacaysa la socotaan gudoomiyaha iyo ugaas maxamed bashiir iyo garaad xuseen iyo kamaalba waa naga dhaceen sababtu waxay tahay kow waxaan soo qabtay meeting room ay iskula jireen waxaan soo qabtay kow garaadka kabacdi waxaan qabtay ugaas maxamed bashiir kabacdi waxaa noo soo gala suldaanka way isku xirnaayeen marka qofkii ugu horeeyay hadduu qadku ka dhaco meesha ka dhaco way wada dhacayaan dabka ka dhacay telefoonka nagala xirinayeen dabka ka dhacay laakiin barnaamijku wuu noo dhammaaday aad iyo aadan waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb gashay insha allahu barnaamijkan waa wadi doonaa waana barnaamij khayri ah oo ka hadalkiisa iyo waditaankiisa iyo organize garayntiisa waxaasoo dhan khayr annaga nafsadanada ay ugu jirto iyo in badan oo muslimiin ah oo annaga nala mid ah marka barnaamijkana waa wadi doonaa gudoomiye aad iyo aad u mahadsan tahay suldan adigana aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan u mahad celinayaa abayaanka Saciid Bashiir annaga qayb galay ugaas waxa weeye waxaad iskula jirteen garaadka iyo adiga iyo suldan kamaal intaba waxaad iskula jirteen hal line marka garaadka idinkugu horreeya soo qabtay marka meeting aad iskula jirteen garaadka dabkii ka dhacay sidaasaad u wada dhacdeen dhammaantiin marka barnaamijkii kolley waa noo dhammaaday si wanaagsan oo noogu dhammaaday waana aad iyo aadna ugu mahadsan tahay ugaas anagu waanu isla khatirnay ducaanu isla khatirnay waxaananu inta khadku naga baaraa laba arrimaa ku darnay ma garatay life aad weli ku jirtaa waad sheegi kartaa waa lagu dhegaysanayaa waxaan ku darnay waan soo jeedinay guddiga sare ee gorgaato gudoomiyaha guud cabdiqaadir cali wari cibrigiisa alaha dheereeyo iyo adiga oo isku xidhihii guud ee ah informationka iyo guddiga iyaga arrimaha gudaha oo gudoomiyaha u yahay garaad cagay yaanoo gudoomiye kula yaafayeenka isku xidhaha labada guddi iyo gudaha iyo dibadda siciid iyo guddiga iyaga gudaha oo dhan iyo idinka inaynu tashaawur ka yeelanno maadaama aan marka hore iclaaminay madasha iyo waktiga ilaahay baana keenay camalka bini'aadmigu sameeyey sababtiisa dhibi timid mana suurtagalaha cudurkaas oo aan kicin oo aan la isu furin dariiqyada gudihi iyo dibadba shirma qabsoomi karaan xaqiiqiyan sida awgeed si official aynu markii hore usoo qabanqaabinay oo guddiga saraa soo barboos garaysay ee guddigii arrimaha gudaha oo dhaqankii oo imaamka guud hogaaminayana waanu ansixinay si mar labaad bulshada si official wax loogu sheego arrintaa ina guddiga sare ka shawraan soo barboos gareeyaan guddiga arrimaha gudaha iyo guddiga sare isla gartaan kabacdina dhaqankii loo gudbiyo si haddii ay suurtagal tahay qabsoonkuna madashi loo xoojiyo haddayna qabsoomi karinna saan filayna ma qabsoomi kartee waqti mucayana oo bulshada wacyigelintii iyo hawshii loo sii wado loona duruuftana ilaahay looga sii baryo guddiga wacyigelintana aan joogto ay sii noqoto inaynu ka wada hadalno arrintaas baa inoo dhiman aan sii wadnaanu isla garanay garaadka iyo annaga intaanu idinka maqnayn iyo suldaanku aad iyo aad aad u mahadsan tahay ugaas arrintaas habeen dhaweedna maaragtaan waa ka shirnay oo ka wada hadalnay siciidna waa nala joogay marka arrintaas waxay u badan tahay inaan waa laga wada hadli doonaa insha allahu tacaala waana iswada maqlaysaan dhammaantiin waana ka wada qayb gasheen marka kolley kelimad kooban uu maaragtay kolley guddoomiyuu dhihi doonaa waana soo gabagabaynaynaa barnaamijka asalaamu calaykum ugaas maxamed bashiir kolley waa imaqlaysaan u malaynayaa aad iyo aad ayaan maxay ahayd anigu kugu waafaqay taladaas aad soo jeedisay waana talo wanaagsan mar horaana ka wada hadalnay aniga iyo suldaanka guud ee gorgaate iyo maxay ahayd axmed cali hudey iyo saciid macalin bashiir iyo cali xirsi naaleeye iyo dad annagoo ah dhowr ilaa 6 qof ahayn waana soo barboos garaynay already wixii annaga aragtidayadu ay ahaydna weli idinma aanan soo gudbin laakiin talada way noogu jirtay inaan soo gudbino oo aan maxay ahayd idinla wadaagno oo aan idinka tala gelino sababtoo ah waxaad tihiin muhiim jiddan ayaa tihiin dadka aad ugu muhiimsan waayo dadkii gudaha joogay oo dhaqanka yaqiinay
oo xaaladda yaqiinay oo dalka iyo la socday sida ay maaragtay dhaqdhaqaaqyada guud ee waddanku ay yihiin dadkii la socday adinka ah siyaasadda ha ahaato ama dhaqanka ha ahaato labadaba marka aad iyo aad ayaan maxay kugu raacay taladaas ilaahay idankiisna arbacada ayaan rajaynayaa inaan ka soo baxo dhakhtarka marka aan soo baxana waan soo wada xiriiri doonaa insha allah maasha allah gudoomiye waayahay ugaas marka barnaamijkii halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa bismillahi raxmaan raxiim daawadayaal waxaad nagala socoteen waa Bargaata TV barnaamijka maanta waxaa igala qaybgalayay suldaan sayid sheekh cabdullaahi iyo gudoomiyaha guddiga midnimada cabdiqaadir cali yarow ugaas maxamed bashiir suldaan garaad cagay iyo sidoo kale suldaan kamaal iyo دكتور سعيد انت عاد يا اد بان ugu mahad celinaya barnaamijkan waxa idin la socodsiinaya anigoo Ahmed Ali Hudaya inta barnaamijkan oo kala dib ugu kulmi doono waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa calaykum